Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Ilaahay ha ka wada raalli noqdo dhammaan halyeeyadii Islaamka oo ay ugu horeeyaan jiilkii saxaabada ee ahaa ardaydii Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Ummad waliba waxay leedahay halyeeyo ay ku dhaadato kana dhimbiil qaadato sooyaalkoodii, jiilkeeda kacaamayaana uga dhigto tusaale fiican oo ay ku daydaan. Ummadda Islaamkuna waxay leedahay halyeeyo dhan kasta oo nolosha ka mid ah guul ka gaadhay oo ku dayasho mudan. Cilmi nafsigu waxa uu xaqiijiyay in insaanku yahay noole ay si dabiici ah ugu abuuran tahay inuu cod ku dayda. Aqoonyahanka ku xeel dheer dhaqanka iyo asluubtu waxay tibaaxaan in dhaqanka iyo akhlaaqda la kala qaato oo la isu gudbiyo. Qofka akhriya inta badan qisooyinka halyeeyada, geesiyaasha, qorayaasha iyo dadka haldoorka ah waxa uu ku sifoobaa tilmaamihii ay lahaayeen haddii uu dhaqan geliyo. Nasiib xumo waxaa ah in dhalintu maanta taqaano taariikhda kuwa kubadda ciyaara ama heesaha qaada si aanay in badan oo ka mid ahiba waxba ka aqoon halyeeyadii Islaamka. Tusaale ahaan, haddii la weydiiyo kuma ayuu ahaa Cumar al-Faaruq, kuma ayuu ahaa libaaxii Ilaahay iyo rasuulkiisu, kuma ayuu ahaa dhakhtarkii ugu horreeyay ee muslimka ah ee qalliin sameeyey, kuma ayuu ahaa xisaabyahankii muslimka ahaa ee tirooyinka idil ku soo kordhiya tirada eber, kuma ayuu ahaa qofkii ugu horreeyay isku dayay inuu diyaarad sameeyo. Maxaad ka taqaanaa amiirkii dhakhaatiirta Ibnu Sina iyo buuggiisii tixraaca u ahaa jaamacadaha Yurub muddo 7 qarni ah? Jawaabaha su'aalahaas waxaa laga yaabaa inay in badan oo ka mid ah dhalintu ku markadaan, waayo looma dhigin loomana sheegin. Haddii si aad weydiiso wiil ciyaartooy ah oo gaal ah oo dhinacyadana xiran, waxaa laga yaabaa inuu si faahfaahsan noloshiisa iyo qoyskiisaba kuugu kala dhigdhigo. Waxyaabaha la isku gumaysto waxaa ka mid ah taariikhda. oo talow sidee ayaa la isku gumaystaa taariikhda? Waxaa la isugu gumaystaa in taariikh been ah lagu dhigo, cid aan waxba ahayn wax lagaaga dhigo, dad aan tusaale mudnayna lagaaga dhigo inay yihiin kuwa mudan in lagu daydo. Waana sida muuqata ee maanta laynagu sameeyey. Tusaale ahaan, dugsiyadana waxaa lagu dhigtaa wax loogu yeedho dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad ee adduunka World War I and World War II, se laguma dhigto dagaaladii dhex maray muslimiinta iyo gaalada sida dagaalkii Badar, Uxud, Khandaq ama kuwii dhex maray gumaystihii Ingiriiska iyo halyeeyadii gobonimo doonka sida Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, Sheekh Bashiir, Faarax Omar iyo kuwa la midka ah. Kaliya waxaa lagu odhanayaa intaa iyo gobonimo doon ahaayeen, se lagu odhan maayo. Tusaale ahaan, Sayid Maxamed Cabdulla Xasan strategic baleenkaas ayuu ku galay dagaalka. Intii uu dagaalamayna tiradaas ayuu ciidankii Ingiriiska ka dilay, balse maantaba isaga ayaa baabi'iisii iyo jabkiisii lagaga sheekaynayaa. Sirta ka dambaysa waa in la soo saaro jiil ka madhan taariikhdiisa, mid islaam iyo mid isirba. Horena waxaa loo yidhi nimaan taariikh lahayn itibaax ma leh. Maanta casrigan aynu joogno waxa socda gumaysi cusub oo ah in dadka iyada oo aan lagu soo duulin, dagaalna lagu soo qaadin, in haddana la gumaysto. Oo sidee ayaa loo gumaysanayaa? Maskaxda ayaa laga gumaysanayaa, taariikh been abuur ah ayaa loo dhigayaa, wax walba annagaa leh ayaa laga dhaadhicinayaa. Marka laga hadlayo halyeeyadii Islaamka oo ah dadkii muslimka ahaa ee raadka muuqda kaga tegay dunida, laynooma dhigo, waayo manhajkeena waxbarashada waxaa dejiya hay-adaha gaalada ama maalgeliya, mana doonayaan inay soo baxaan dad xambaarsan hankii Cumar bin Khadaab, Cali bin Abi Daalib iyo Cusmaan bin Cafaan oo kale. Iminka ubadkeena dugsiga hoose dhigta waxaa loo dhigaa qowmiyado cawaan ah oo aan ilbaxnimo lahayn, waxa lagaga daydaana aanay jirin, sida Baantuuga, Oromada iyo Tuwaariga. Haddaba maxay tahay ilbaxnimada ay leeyihiin cawaantaasi, ama aynu nidhaahno lagaga dayan karaa? Ugu dambeyn, macluumaadkan iyo mid kasii badanba waxaad ka heli kartaa buugga uu alifay Ismaaciil Haniye, uguna magac daray halyeeyadii Islaamka, kagana warramayo 10kii saxaabi ee jannada loogu bishaareeyey. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.